إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. tobankan dambe ee bisha mudnaan gooniyay leedahay walaalayaal, mudnaan khaas ah ayay leedahay. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh asagoo bisha inteeda kale soo dadaali jiray ayaa haddana tobankani markay soo galaan wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale. tobanku markay soo galaan nebigu sal alla alay wasalam wuxuu isku dari jiray inuu xaasaskiisa ka fogaado, leanna ictikaaf buu geli jiray. nin ictikaaf ku jirana reer iyo xaas iyo gogashoodu uma taallo. habeenkiisana waa noolayn jiray nebigu sal alla alay wasalam oo wuxuu ku noolayn jiray ilaahay taacadiisa, qur-aan akhris, salaad la tukado, sadaqo iyo infaaq, ilaahay dikrigiisa, istikfaarta. habeen nool buu ahaan jiray habeenka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. reerkiisana waa toosin jiray rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam. xaasaska iyo ehelkiisana waa kicin jiray si ay jaaniska uga faa'iidaystaan, li'anna wax weeye waa wax aan la heli karin weye, waana fursad ay dhici karta inayna soo noqonin. sidaas daraaddeed ehelkaaga waxaad naftaada la jeceshahay baad iyagana la jeceshahay. taacada marka in la kordhiyo oo dadaalka la siyaadiyo waa hadyigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh. taacada soo siyaadaysa waxaa ka mida bishan tobankeeda dambe ictikaafka oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh tobankan dambe markay soo galaan waa ictikaafi jiray. ictikaafka waxaa laga wadaa inuu ruuxu ka dhex baxo, ka go'o wixii adduunka mashquulinahayay, ganacsigii, suuqyadii, dadka ku dhex jirkoodii, la sheekaysigooda, reerihii iyo muxuu ahaay gogashii, wax kastoo mashquulinahayay inuu ka dhex baxo oo uu naftiisa masaajidka ku xabiso oo halkaa uu kula goonin noqdo ilaahay dikrigiisa tabaaraka wa tacaala iyo allah muraaqabayntiisa iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala taacaadkiisa, qalbigiisu inuu gooni u noqdo oo jidhkiisa iyo qalbigiisuba ay u go'aan allah taacadiisa tabaaraka wa tacaala. muxuu ictikaafayaa tobanka dambe? wuxuu raadinayaa laylatulqadri buu nebigu baadigoobahayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan inuu ina yidhi tobanka dambe ka raadiya, tobanka dambe haddana habeennada tirada isdheer ka raadiya. haddii xataa aad caajisto oo lagaa tambato toddobada dambe yaan lagaaga tambadanin buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxay ugu rajo badan tahay 21-ka ama 23-ka ama 25-ka ama 27-ka ama 29-ka. waa habeenaday ugu rajo badan tahay. nebiga sal alla alay wasalam axaadiistiisa waxaa ku sugan habeenka 27 si khaasa axaadiid ugu soo aroortay, 21-kana axaadiid khaas ugu soo aroortay baa jirta. warka marka laysku celceliyo culimmadu waxay leeyihiin waana ra'yiga xoogga badane, habeen khaasoo sannad walba ay tahay ma jirtee si axaadiista macnaheeda kulli ay sax u wada noqdaan oo loo kulmiyo. sannadba meel bay gashaa oo sannad waxaa dhici karta inay 21-ka ku jirto, sannadna 25-ka ku jirto, sannadna 27-ka, sannadna 23-ka. waa fadiilo warwareegaysoo marba meel buu alla geliyaa tabaaraka wa tacaala. adiga marka haddaad tobanka dambe oo dhan habeenadeeda kulli dadaalka isku bixiso, shaki wuxuusan ku jirin meelay martayba inaad heshay, inaad haleeshay ood heshay ayaa soo baxaysa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. marka tobanka oo dhan dadaalkaaga ha kala goynin oo siyaadada iyo khayrka iyo wanaagga badso si aanan habeennimo kuu dhaafin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaalaha aad uu inoogu jideeyey waxaa ka mid ah tobankan dambe khaasatan laylatulqadri
habeenkaas la raadinayo baadidaa luntay baadidaa la wada raadinayay qaaliga ah jawharadaas aadka qaaliga u ah oo habeenkaa camalkaad la timaaddo 1000 bilood camal aad la timid uu ka khayr badan yahay habeenkaas waxyaalaha aadka loo baahan yahay in loo badsado waxaa ka mida habeenada la filayo ducada ka mida nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaskiisa caaisha ayaa waxay ku tiri rasuulka ilaahayow laylatul qadri haddaan haleelo ama aan is idhaahdo waa caawa maxaan idhaahdaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waxaad ku ducaysataa allaahumma innaka cafuwun tuxibbu alcafwa facfu cannii allah waxaad tahay midka cafintiiyo saamixaadda badan ee addoommadiisa saamaxa ee rabbiyow iska kay cafi ilaahu dembigayga dhaafoo ee cafi hadalkaa badi buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh lianna aslanba waxaad ogaanaysaan baryada iyo ducadu allah tabaaraka wa tacaala cibaadaadka kuwa ugu jecel yahay wey waxaa loo baahan yahay marka in qiyaamka iyo istaagga iyo qur-aan akhriska la siyaadiyo 10kan dambe sida nebigaba ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih habeenkaa ruuxii istaaga laylatulqadriga oo ilaahay taacadiisa isu taaga oo salaad iyo khayr habeenkaa ku dhammaystaayey dembigiisii hore waa la dhaafi buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka inaan khayraadka siyaadsanno wixii aan horay u haynayna inaan kordhinno intan soo kordhaysana inaynu ka faa'iidaysanno si ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisa aynu u helno bishanna aynu jaaniskan ilaahayna siiye tabaaraka wa tacaala khayraad fara badan si kaydka aakhare aynoogu gasho biidni illaahi tabaaraka wa tacaala oo dembi dhaaf iyo wanaag iyo taaco iyo khayr iyo wax mustaqbalkaaga ku anfaca maalinta qiyaamada axibatii fillah